Gaaladii reer Quraysh ayaa u tagtay Yuhuudda waxayna weydiiyeen maxaan ku sameynaa nin sheegtay nebinimo waa Nabi Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Kadibna Yuhuuddii waxay tiri waxaad weydiisaan 3 arrimood oo kala ah dhalinyaro la waayay oo meel ay qabteen aan la garanayn, nin dhulka meeray iyo ruuxda. Kadib gaaladii reer Quraysh ayaa u yimid nebiga oo weydiiyay 3 arrimood. Nebiguna waxa uu ku yiri bari ayaan idinkaga warami, laakiin waxyigii umuusan imaan nebiga. Kadibna gaaladii ayaa u timid baridii nebiga oo weydiiyay inuu uga waramo 3 qiso, balse nebiga waxa uu ku yiri bari ayaan idinkaga warami. Markay gaartay dhowr cisho oo aan waxayna ku soo degin nebiga ayaa xitaa muslimiintii yaabeen oo isweydiiyeen muxuu soo degi waayay waxyigii. Kadibna Eebe ayaa soo dejiyay aayadan ha ku dhihin shaygaas ayaan fali beri adoon dhihin hadduu Eebe idmo. Maalintii dambe ayuu nebiga ku yiri insha Allah beri ayaan idinkaga waramayaa. Markaas ayay soo degeen qisooyinkan asxaabul kahfi, dulqarnayn iyo ruuxduba. Halkan waa dunida daahsoon. Muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa qisadii asxaabul kahfi. Waxaa jiray dhalinyaro rumeeyay Allah, waxay ahaayeen ilmo boqortooyo. Deegaankooduna wuxuu ahaa deegaan gaaleed oo caabuda sanabiyada iyo Ilaahay oo cid kale la wadaajiyo. Dhalinyaradan ismay garaneyn ee mid waliba wax uu qarsaday iimaankiisa. Kadib maalin ayaa qoomkoodu u baxeen ciid ay lahaayeen, balse mid kasta oo dhalinyaradii ka mid ahaa waxa uu muujiyay cudurdaar. Qoomkooduna waa ay ka yeeleen inay iska joogaan. Dhalinyaradii ayaa isugu yimid geed hoostiisa. Markaas baa mid ka mid ahi kacay oo yiri kuwaas waa qoomkeeni, waxay caabudeen sanabiyo alla ka sukow. Annaguna waxaan rumeynay Eebaha abuuray samooyinka iyo dhulka, mana caabudeyna cid aan isaga ahayn. Waxaa alla isku xiray quluubtoodii oo way isku raaceen in ay Allah oo kaliya caabudaan. Dhalinyaradii waxa ay go'aansadeen inay ka fogaadaan qoomkooda oo ay hoy ka yeeshaan god. Deegaankooda oo ahaa buuraley ayay ka doorteen god ku yaalay. Markaas bay galeen godkii ayagoo aqal ka dhigtay. Waxaad qiyaastaa carruurtii boqoradu dhaleen oo ka fogaanaya ehelkooda oo gaala ah, kana yeelnay hoy god aan la garanayn waxa kaga soo bixi doona. Markay godkii galeen ayay jifteen. Kadibna Eebe ayaa ku soo rogay raxmadii iyo naxariistiisa. Waa ayna seexdeen, waxayna hurdeen 309 sano. Waxaad arkaysaa qoraxda oo markay soo baxdo ka qabanaysa dhanka midig ee godka, marka ay sii dhacaysana ka qabanaysa dhanka bidix, ayagoo ku sugan meel waasac ah oo godka ka mid ahi. Subaxa iyo galabtii ayay qoraxdu qabanaysay si ay uga helaan fitamiinada daruuriga u ah jirka. Hase ahaatee xilliga duhurka qoraxda ma aysan qabanayn. Waxayna culimada dhaqaatiirtu sheegaan in qoraxdu halis badan tahay xilliga duhurka ah. Sidaa awgeed nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu yiri qiilu fa inna shayatin la taqil. Qayluladu waa hurdada xilliga duhurka, sababtoo ah shaydaanku xilliga ma seexdo. Dhalinyaradan ehelkoodu way raadiyeen oo waxaa la galay baadikoob, laakiin maysan helin. Waa ay ka quusteen. Kadibna arrintoodii baa faaftay in la waayay dhalinyaro meel ay qabteen aan la garanayn. Dhalintii hurday ayaa Allah subxaanahu wa tacaala u kadkadinayay midig iyo bidix, si haddii uu qof u arko ugu maleeyo inay nool yihiin iyo si aan jirkooda dhulka u cunin. Waxaad moodaysaa inay soo jeedaan, haddana waa ay hurdaan. Xitaa culimada tafsiirka qaar baa yiraahdaa dhalintan indhahoodu way furnaayeen. Eygoodina waxa uu albaabka hurday isagoo fidiyay dhudhankiisa. Haddii aad aragto waad ka jeesan lahayd adigoo cararaya, waadna argagaxi lahayd cabsi darteed. Alla waxa uu siiyay heybad ay makhluuqaadka kale kaga argagaxaan, gaar ahaan xayawaanaadka wax ugaarsada. Dhalintii waxa ay godka hurdeen muddo dhan 309 sano.
jiilkoodii iyo jiilkii ka dambeeyey way dhinteen. Maalintii dambe ayay hurdadii ka kaceen, waxayna isweydiiyeen imise ayaan hurdnay. Markaas bay dhaheen maalin iyo maalin barkeed. Ma oga inay hurdeen 309 sano. Kadib waxa ay dareemeen gaajo. Markaas baa mid dhalintii ka mid ah u dhiibeen lacag ka samaysan fido ama qalin, kuna dhaheen inoo soo iibi cunto, iskana ilaali qoomkeena, sababtoo ah haddii ay ogaadaan way ina dilayaan ama diintooda ay inagu celinayaan. Wiilkii waa baxay, isla markii waxa uuna la kulmay dunidii oo isbedeshay, cimradihii iyo guryihii oo bedelan, iyo sidoo kale dadkii oo aan ahayn kuwii uu yaqaanay. Kadibna waxa uu u tagay nin iibinaya cunto. Markaas buu ku yiri, lacagtan qaado oo iga gado cuntada. Ninkii wax iibinayay ayaa la yaabay lacagta uu wiilkaani watay. Kadib waxa uu u sheegay boqorkii deegaanka. Boqorkii baa wareystay wiilkii oo weydiiyey halka uu ka yimid iyo lacagta halka uu ka keenay. Boqorku warkoodu waa uu hayay in dhalinyaro la waayay muddo 309 sano ka hor. Wiilkii ayaa ugu waramay inay shalay seexdeen godka isaga iyo saaxiibadii ayagoo ka cabsanaya qoomkooda. Boqorkii ayaa ku yiri, shalay meedaan seexan, waxaad hurdeen 309 sano. Wiilkii isaga oo yaaban ayuu u yimid dhalintii kale. Kadib warkii ayuu u sheegay inay hurdeen 309 sano. Dhalintii aad bay u yaabeen. Markay xaqiiqsadeen inay hurdeen muddo aad u dheer ayay eebbe mahdiyeen. Kadibna Allah ayaa ruuxdoodii ka qaaday dhalintii isla hal mar, halkaas bayna ku geeriyoodeen. Dadkii ayaa yimid godkoodii, waxayna heleen dhalintii oo geeriyootay. Markaas bay albaabka godka saareen dhagax. Kadibna waxa ay isku khilaafeen in godka korkiisa ay ka dhisaan masaajid. Asxaabul Kahfi waxa la isku khilaafay tiradooda. Qolo waxay tiraahdaa waxay ahaayeen 3 wiil iyo eygooda. Kuwa kale waxa ay dhahaan waxay ahaayeen 5 wiil iyo eygoodii. Sidoo kale waxa ay dhahaan 7 wiil iyo eygoodii. Hase ahaatee tirada rasmiga ah waxa og Allah subhanahu wa ta'ala. Waxa kaloo la yaab ah in eyga oo muslimiinta agtooda nijaas ka ah in Allah subhanahu wa ta'ala Qur'aan ku xusay, sababtoo ah waxa uu saaxiib la noqday dad aad u wanaagsan. Qisadan Asxaabul Kahfi waxaad ka akhrisan kartaa suuradda 18aad ee Qur'aanka ee loogu magac daray qisadan ee suuratul Kahfi, aayadda 9 ilaa aayadda 26. Xaguu ku yaala godkii Asxaabul Kahfi? Godka Asxaabul Kahfi meeshuu ku yaala khilaaf badan ayaa ka jira. Waxaana la sheegaa inuu ku yaalo wadamada Turkiga, Suuriya, Yaman iyo Urdun. Sanadku markuu ahaa 1963 ayay dowladda Urdun sheegtay in godka Asxaabul Kahfi ku yaalo Urdun, ayagoo soo bandhigay god la yiri waxa ku aasan 7 qof iyo ey. Ilaah baana og xaqiiqda. Halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa qisadii Asxaabul Kahfi. Muuqaalo kale ayaan ka soo sameyn doonaa haddii uu eebbe idmo qisooyinkii kale ee la soo degay qisadan ee Dulqarnayn iyo ruuxda. Wabillahi tawfiiq.